waxaan aad ugu faraxsanahay in maaragta ciidankan qiimaha badan aan maanta halkan kula qadayno kula sheekaysano isxaal waraysan sidaad la socotiin dalku wuxuu ku jiraa dagaalkaasna waxaa lafdhabar u ah oo xaqiiqdii hogaaminaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwiisa isbishalka ah ee gorgor iyo danab awalkii hore magacyo kala duwan baa lisugu wici jiray oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxba laga sheegi jiray inaysan kaligooda dagaalami karin inaysan kaligooda isku filneen inaysan kaligooda guulo waaweyn aysan keeni karin laakiin waxaas oo dhan waxa beeniyay oo waa been yiri ciidamada gorgor iyo danab iyo ciidamada guutooyinka ku sugan oo xaqiiqdii dagaaladii muddada hadda 3 bilood ah joogtada loogu jiray casharo aad iyo aad lama ilaabaan u dhigay cadowga khawaarijta ah ee la magac baxay al-shabaab waxaan idinkaga mahad celinaynaa guulaha soo hoyseen waxaan idinkaga mahad celinaynaa sida qiimaha badan ee dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed aad sharafkooda iyo karamkooda aad u dhoorteen intii nooga shahiiday Ilaahay subxaanahu wa ta'ala shahaadadooda ha ka aqbalo intii dhaawacanteen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhaawacooda ha bogsiyo laakiin waxaad ogaanaysiin qofna meel cidla noogama bixin dalkan anaga iskale diinteena Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo noo soo dejiyayna mas'uuliyadda ka saaran inaan ka difaacano cadowga horarka ah ee raba inuu ka been sheego anaga lana ka rabaa ciideena iyo calankeenana anaga lana ka rabaa inaan ka difaacano cadowgaas horarka mas'uuliyadda koowaadna idinka qaadayo dareeskan iyo calankan markaad garabka saarateen ayaad qaadeen waajibaadyo culculus oo kuwii hore loo soo maray ka culculus ayaa noo yaal cadowgii weli waa jira waa taagay faanooli fari kama qodno weli shaqadii way noo dhimantay waxaan iskula dardaarmaynaa samir waxaan iskula dardaarmaynaa adkaysi waxaan iskula dardaarmaynaa in aan la hilmaamin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala diinkiisa dadka difaacaya inaan anagana dalka Soomaaliyeed haweenka uurka leh ilmaha marasta ah ee waayeelka iyo dhammaan dadka shucuubta Soomaaliyeed oo nimankan shabaab habeenba ay 50-20 intay qarax ku dilaan ay gubayaan badbaadadoodana anaga ayayna sugaysaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qofka daalimka ah uma heeliyo shabaab waa daalimiin waa khawano waa dhiigmiirato waa khawaarij waa kuwa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nabigiisa sheegay qofkii dilana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajir ka siinayo haday dilaan uu ajir helayo sida daraadeed waxa lana ka rabaa ciidamadiina isbishalka ah waxa idin ka rabaa in mar walba qalbiga ku haysaan guushu inay dhowda ina mar walba qalbiga ku haysaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu marna nooga hiilinaynin cadowgaas khawaarijta ina qalbiga ku haysaan haweenka waayeelka maaragta marasta iyo ilmaha masaakiinta ah Soomaaliyeed oo dhiigooda badbaadinaysa ina mar walba maskaxda ku haysaan lana ka rabaa nimankaas waa fuliyiin meel ay istaagayaan male waa cararayaan goobihii loogu taga dhan waa ka cararayaan in yara la khaldaayo jilbaha iyo gacmaha inta laga xiro la yiraahdo godkan ku dhinta qaarkooda inta daraagis la siimeeshan ma dhaafi kartiin la dhaha intaas waxa maaragta baqtiyadooda aan arkayno laakiin khawaarijtii waa weyneed iyagoo furmaha ku jira maaragteen Axmed Diiri oo furin taagan maaragteen Ali Dheer maaragteen Mahad Karatay oo furin taagan maaragteen waa wada cararayaan godadkay ku wada jiraan meesha halkaan maaragta taliyaashii iyo mas'uuliyiintii xildhibaanadii shacabkii Soomaaliyeed ay laamiga taagan yihiin furmaha ay taagan yihiin shacab madaxdooda ilmahaas la soo khalad waxaan ahayn mahaysiin nimanka sidaas ka dhaba waa khawano waxa la iska rabaa marka iyo dhagar
iyo been iyo dad miino loo dhigo iyo maaragta masaakiin qarax maaragta jidadka lagu la qarxay bas yaqaaneen intaasna hadii ilaahay yiraahdo waan ka guuleysanayna waxaan guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku amaanaya iyo taliskiisaba guud ahaan sida wanaagsan ee xaaladda dalka uu hadda ku jiro ay u maareeyeen waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo shacabka Soomaaliyeed goob walba oo ay joogaan sida wanaagsan qiimaha leh iyagoona waajibaad gaar ah inay qori ku qaadaan aanan saarneen ay qoryaha u qaateen oo ay naftooda ugu huraayaan in shacabka Soomaaliyeed la badbaadiyo waan uga mahadinaynaa dhammaan qabaa'ilada Soomaaliyeed ee dagaalka ku jira ee mas'uuliyiintooda hor socoto oo laamiyada taagan oo duurka taagan oo duruufaha iyo oonka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku garab taagan waa u mahadinaynaa ayagana waxaan leenahay ilaahay ajir idinka siiyo waajibaad annaga dhan wada saaran waay dalkan amnigiisa inaan gudano walow mas'uuliyadda dawladdu ay gaar u saarneed haddana shacabka Soomaaliyeed dulmigan muddada ku dheeraaday inuu iska kiciyo oo u kacdoomo waa ugu mahadinaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay fursad tan ka fiican oo dalkan soo mari lahayd ma jirto inaad hesho wiil Soomaaliyeed oo aan mishaar ku qaadan oo aan maaragtaa darajo ku qaadanin oo darees gaar ah ugu jiro iyo mishaar wax uu ku qaato aanan jirin inuu soo baxo oo qorigiisa soo qaato oo khawaarij inuu la diriro ka garab diriro kugu agdhinto soo go'aansado dareen sahlan ma waa inaan dadkaasi Soomaaliyeed dareenkooda ilaalino waa inaan u gargaarno waa inaan maaragta enerjigeena hadaan habeen aan shaqeynaynin habeen iyo maalin isku darno hadaan maalin shaqeynaynin habeen iyo maalin aan wada shaqeyno arrinkaas lana ka rabaa waajibaad gaar ah idin saaran ciidamada furimaha joogo oo ku dirirayo waajibaad gaar ah saaran waxa la rabaa in dadka ka garab diriraya karamkooda iyo sharafkooda la ilaaliyo la kaalmeeyo waxay u baahan yihiin la qabto qabaa'ilada Soomaaliyeed ee dib isku dhigaya qaarkood ayagana waxaan ka rabnaa inay furmaha soo istaagaan wax kooban baa haray cadowga waxa ka baxday tiro ka badan 1600 oo askari ayaa ka dhimatay insha Ar-Rahmaan maalmaha soo socdana intaas in ka badan ka dhiman doonto wax naafoobo iyo wax oo dhaawac ah kuma aanan darin tiradaas waxaan rabnaa inta harteen inay baxaan ama shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdiisa iyo cadaaladiisa inay isku soo dhiibaan dhalinyarada la khaldaayo laamiyada la taagan yahay waqtigii liidin nixi jiray waa la soo dhaafay oo shabaab maaragta qoryaha u soo qaaday laba option u banaan inay ka soo tagaan ay soo faarujaan furmaha shabaab ama inay ku dhintaan labadaas option bisa u banaan waqtigii dawladda Soomaaliyeed ay u diirnixi jirtay shabaab see laga yeelaa dhalinyaro Soomaaliyeed la joogtay ay khaldeen wax la yiraahdo kadib cid la khalday ma jirto anaga xataa waa la khalday haday khaladku uu yahay shacab Soomaaliyeed la laayo anagana ina iyaga dilnaa ku khaldanaay miya marka masaasa khaladka shacabka Soomaaliyeed ina disho lagu khaldaayo oo haweenka disho ilmaha disho lagu khaldaayo muxuu yahay qofku naxaysa male anagana ina adigu ku dilno kuma khaldin dib dambe shacabkan Soomaaliyeed looma khiyaanayo dawladda Soomaaliyeed iyo qarankeedana looma khiyaanayo waa ku mahadsantihiin taliye adigana aad u mahadsan tahay taliyaha maaragta taliye odawaa iyo dhammaan saraakiisha ciidamada maaragta taliye carab dhammaan tiimka halkan taagan saraakiisha taliye ururada maaragta iyo taliye kooxyada dhammaan kuwa heeganka ah dhammaantiina waa idinkaga mahadinayaa qaadada quruxda badan oo maanta halkan ku wada qaadanay waqti quruxda badan oo halkan ku wada qaadanay maaragta dagaal waa dhiman yahay aan ka shaqeyno aan ku dadaalno in aan waqti dhow oo aad u kooban aan shabaab ku soo afjarno haddii nala dheeraato waxaan aaminaynaa inaan laga adkaan karin sidaa daraaddeed ma rabno marka inay nagu dheeraato waa inaan waqti kooban uga baxno nimankan 3 bilood waxa u maleynayaa 1600 haday uga baxday 3 bilood oo kale 2000 3000 4000 waa ka saari karnaa xaaladooda waa ka saari karnaa aan ka saarnaa diilaahiina aada u mahadsantiin sharafi karaama leedihiin waa idin mahadinaynaa waana maaragtay idinku rajweenahay
guulo kale oo ka waaweyn inaad soo hooyin doontiin salaamu allaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu